kulan wanaagsan saaxiibayaal waxaanu maantana halka ku duubaynaa 20 su-aalood oo kale. mawduuceennii waa questionisa. waxaynu sameyneynaa insha allah maalmuhu dambeeyey waxaan maraynay banubagang. waxaa ku xiga su-aalo gaagaaban halkan 13 su-aalood iyo 7 su-aalood. 13 su-aalood 7daas su-aalood muuqaal gaaraan ka dhigaynaa, laakiin iminka waxaan sameyneynaa qeybtan 19 su-aalooda markaasi farhaltin van Wolfgang Überweg wegen über Wolfgang. su-aasha koowaad waxay odhanaysaa waa 4 dhibcood. waxay odhanaysaa su-aasha koowaad Womit müssen Sie bei derartigen Klärungshilfen rechnen? halkan aad aragtid iminka gawaadhida iyo dadka iyo baaskeelada iyo ciyaalku ay marayaan, maxay tahay inaad ku xisaabtantid markaad gaadhigaagu marayo? su-aasha koowaad Fußgänger nehmen an, dass sie Vorrang vor dem Verkehr haben. dadka lugeynaya wadadu waxa ay ku fikirayaan in iyagu ahmiyadda leeyihiin oo ay wadada ay iska soo gelayaan, micnaha adigoo maraya kuma sugayaan, ay iska soo gelayaan. taas waa sax, dadku waa iskaga xisaabtamaan. Radfahrer überqueren die Straße, ohne den Verkehr zu beachten. baaskeelka dadka wada ayagaan hararaha iska eeginba iyaguna wadada markaasi soo gelayaan, iyaduna waa sax. Fußgänger beachten stets den Vorrang von Fahrzeugen. dadka lugeynaya waxay og yihiin in ahmiyadda bas gawaadhidu leeyihiin, marka xaqa gawaadhida way ilaalinayaan oo sharciga wadada way ilaalinayaan. micnaha taa kuma xisaabta. haddaad taa ku xisaabtantid oo mid ilaalin waayo gaadhi waa jiiraysa, marka waa inaad ku xisaabtantaa inay mararka qaarkood iska soo geli karaan. taas labadaas ayaa markaasi saxa. tan saddexaadna waa khalad. su-aasha ku xigtayduna waa Wolfgangi ayaa wadada leedahay, baaskeel baa ka horeysa, dad baa wadada maraya. maxay su-aashu leedahay? Was gilt in dieser Situation? maxaa markaasi saxa ama xaaladan markaasi maxaa jira? Ich darf die Radfahrerin hier überholen, da kein Gegenverkehr erkennbar ist. waxaan awoodaa inaan baaskeesha hadda ubahoolin ku sameeyo sababta gawaadhi soo socotaa ma jirto. waa khalad, sababta ah markaad Wolfgangi maraysid ubahoolinku waa ka mamnuuc, sababta ma ogid xaggan dambe wax kasoo socda. haddii xaaladdu kuu caddahay oo kaleed ubahoolin samayn kartaa, marka taas waa khalad. Ich darf die Radfahrerin hier nur mit mäßiger Geschwindigkeit überholen. halkan waxaan ku awoodaa baaskeesha inaan xawaare aada u hooseeya ku dhaafo, taasina waa khalad. Ich darf die Radfahrerin hier nicht überholen. ma awoodo ma ogola inaan hadda halkan baaskeesha markaasi ku dhaafo. tan ayaa saxa. labada kale ku ogolaanaya inaad daaftid, labaduba waa khalad. okay, su-aasha ku xigta iyaduna maxay leedahay? Vor Ihnen befindet sich ein Fußgängerüberweg, hinter dem der Verkehr auf Ihrem Fahrstreifen stockt. Wie verhalten Sie sich? Vor Ihnen befindet sich ein Fußgängerüberweg, hinter dem der Verkehr auf Ihrem Fahrstreifen stockt. Wie verhalten Sie sich? waxaad wadada kaa soo horbaxay Sibrstrasse ama Wolfgang, meel calaamadaha cascad leh. kadibna marka calaamadda saa loo dhaafo horteeda gawaadhi badan baa jaam ku jirta oo position aad gashid ma laha. haddii aad gawaadhida daba istaagtid waxay noqonaysaa inaad Wolfgangiga dushiisa istaagtid. maxaad markaasi samaynaysaa? Auf dem Fußgängerüberweg warten, um den Fahrzeugrückstau zu verkürzen. ku dul istaag Wolfgangi Überweg ama Sibrstrasse hali dadka cadcad dul istaag oo sugi intay wadadu kuu furmayso. taas waa khalad. Vor dem Fußgängerüberweg warten, um Personen das Überqueren zu ermöglichen. Sibrstrasse hortiisa ama Wolfgangiga hortiisa intaanad gaadhin ka hor istaag si aad dadka uga ogolaatid inay wadada ka gudbaan. taasi waa sax. Auf dem Fußgängerüberweg warten, wenn keine Personen zu sehen sind. Wolfgangiga dushiisa istaag marka aanay dad markaasi wadada marayn ama aanad dad arkayn doonaya inay kasoo gudbaan. haddii dad marayaan iyo haddii kaleba Wolfgangiga haddii aanad ka gudbi karayn ha dul istaagin oo hortiisa markaas istaag. markaa taa Wolfgangiga hortiisaan istaagayaa ayaa sax, labada kale waa khalad. okay, su-aasha ku xigta waa kan Wolfgangi lagu sheegay haddii halkaa hore gawaadhi taagan tahay iminka casharkii ugu dambeeyey oo kale halkan baad istaagaysaa oo waxaad ogolanaysaa dadku inay gudbaan, laakiin ma dul istaagaysid. iminka tan xaaladeeda aanu eegno waa xaalad ka duwan. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig? xaaladan hadda sidee u dhaqmaysaa? okay, Ich verringere meine Geschwindigkeit und bereite mich darauf vor, anzuhalten. waxaan soo gaabinayaa xawaarahayga waxaanan isu diyaarinayaa inaan markaasi istaago ama diyaar u ahaanaya inaan istaago. Ich fahre mit gleicher Geschwindigkeit weiter. xawaaraha hadda ku socdo oo ah 25 km/h ayaan markaas 30 km/h ayaan markaasi ku soconaya. 30kan hadda ku socdo ayaan markaasi ku soconaya. taas waa khalad.
Ich beobachte die Fußgänger aufmerksam. waxaan isha ku haynayaa ama markaasi ka taxadarayaa fuuskanga way taagan yihiin hadda ma gudbayaan mise ma gudbayaan. Ta horena waxay ahayd xawaarahaygan hoos soo dhimayaa. Waxaanan isu diyaarinaya inaan break qabto lacala xawaarahay markaan soo gaabiyo haddaan arko inaanay gudbayn waan iska soconayaa haddii aan arko inay gudbayaana saan break uga qaban karo markaa ta koowaad iyo ta saddexaad ayaa saxa ta kalena ishaan ku haynayaa weeye. Okay, su-aasha ku xigta iyaduna maxay leedahay isla muuqaal sawirkan hore aan aragnay laakiin sawirkan inoo kala bedbedela gawaadhida iyo ashtraasa bank oo buluug ahaa iyo baa inoo bedelay gaadhigana casaan ahaa iyo baaskeesha iyo dad kale inoo kala bedbedelay laakiin waa saraysiyadii un barmeynaya. Womit müssen Sie bei derartigen Klärungshilfen rechnen? xaaladan hadda aad ku jirtid maxay tahay inaad qishnin ku samaysid oo aad ku xisaabtantid. Fußgänger beachten stets den Vorrang von Fahrzeugen. fuuskankigu waxay biaqtin ku sameynayaan cidda markaasi ahmiyadda leh gawaadhida ayay ahmiyadda siinayaan. Fußgänger nehmen an, dass sie Vorrang vor dem Verkehr haben. dadka lugeynaya waxay ku xisaabtamayaan iyagu ahmiyadda leeyihiin oo iyagu fooqaanka markaas leeyahay taas waa sax sababta waa inaad taas ku xisaabtantaa. Radfahrer überqueren die Straße, ohne den Verkehr zu beachten. baaskeesha qofka wadaa wadadu iska soo goynaya isagaan gawaadhida markaasi iska eegin marka labadan baa saxata sare waxay kugu leedahay sharciga ilaalinayaan dadka wadada maraya markaasi taas khalad weeye sharci ma ilaalinayaan. Okay, hadda tanna waxaan meynayaa tii hadda inaga soo horbaxday inay tahay iyadana bal aan eegno. Was gilt in dieser Situation? maxaa xaaladan jira sidee xaaladan markaa saddexda choice lagu siiyey keebaa saxay ka dhigan tahay. Ich darf den Radfahrer hier nicht überholen. ma awoodo inaan halkan raadbaaraha overhauling ku sameeyo markaa sipreshtraas arkaysid ma awoodid inaad overhauling ku samaysid raadbaaraha caadiyan overhauling waa ku samayn kartaa laakiin markaad sipreshtraas maraysid xaaladuna sidan hadda ay tahay gaadhigan ku xisaabtan wadada taagan xaggaad soo socota war ma haysid markaa hadda overhauling ha ku samayn taasi waa sax. Ich darf den Radfahrer hier überholen, da kein Gegenverkehr erkennbar ist. hadda waan awoodaa inaan overhauling ku sameeyo sababtaa gawaadhi xagga hore kama soo socoto taas waa khalad gawaadhida ma qosayso wax qosaysaa sipreshtraas haddii gaadhi soo socon lahaydna waa kasii badnaan lahaydba. Ich darf den Radfahrer hier nur mit mäßiger Geschwindigkeit überholen. halkan waxaan awoodaa inaan xawaaro hoose markaasi ku dhaafo taas waa lagugu khaldaya waxaansa ha xawaaro hoose ku dhaafi karaysaa kun yar waa soconataa nob ma dhaafaysid waa daba istaagaysa marka taas oo kaliya saxa labada kale waa khalad. aan eegno. In welchen Fällen müssen Sie an einen Fußgängerüberweg besonders vorsichtig heranfahren? saddexdan joose lagu siiyey kee ayay tahay inaad markaasi fuus fuuskangi ubaweeg ama sipreshtraas labaduba waa isku mide liidadka cadcad ee wadada ay tahay inaad markaasi si taxadar dheeraada aad muujisid. Wenn die Sicht auf den Fußgängerüberweg eingeschränkt ist, marka xaaladda aragti ahaan ee fuuskangi ubaweega uu cidhiidhi yahay oo aanad arkayn ama gawaadhi kaa xidhay kale aan arkayn haddii qof soo socdo iyo haddaan qof soo socon inay biyaar soo ordayaan inaad xaaladda ogeyn gino waxa hararahaaga ka dhacaya marka waa inaad taxadar dheeraada muujisaa waa sax. wenn Fußgänger die Fahrbahn überqueren wollen. marka qof lugeynaya uu doonaya inuu wadada gooyo fuuskangihii halku xaqa u lahaa uu maro markaana waa inaad taxadar dheeraada muujisaa oo aad ka istaagtaade. Wenn ein anderes Fahrzeug bereits vor dem Fußgängerüberweg wartet. marka gawaadhi kale oo kaa horeysa ay sugayaan sipreshtraasaha oo ay sipreshtraas hortiisa taagan yihiin oo dad u ogolaanaya inay gudbaan markaana waa inaad adiguna ka istaagtaa oo aad tirahdaa gawaadhida horeba way sugayaan daana waa sugaya sababta hadda tahay gawaadhidan sugaysa overhauling baan ku sameynaya waa dhaafaya suuragal maaha waa inaad dabadeeda istaagtaa intay wadada u furmaysa markaa saddexduba waa sax. Okay, su-aasha ku xigta tani waa video aynu eegna bal. waxaan maraynaa waddo magaalo dhexdeeda gaadhi ayaa inaga horeeya. Okay, xagga hore waxaa ka aragtaa in fuuskangi uu soo socdo gaadhiga wuu gudbay qof baa soo ordaya ma gaadhigaa dabagelaysaa mise maxaa samaynaysaa. Okay, caadiyan gaadhi ma dabagelaysid adigu gaadhiga ha ku xisaabtamin adigaas ku xisaabtamaya. Verhalten Sie sich richtig? hadda sidaa u dhaqmaysaa dadka hortooda qof baa soo ordayay qofkaasi kama gaadhsiinaysid wadadu doonaya inuu gooyo. Ich halte an, weil ein Mann den Fußgängerüberweg überqueren möchte. waan istaagayaa sababtaa nin baa rabaa inuu wadada gooyo. Ich halte an, weil ein Kind hinter dem Transporter auf die Fahrbahn treten wird. halkaa inuu ilmo kusoo jiray war uma hayo ma arkayn haddaad arkayseen videoga inaan kuma celin karno
inaad si wacan u daawatid weeye sababtaa taa ma ogeyn. Ich fahre langsam weiter, weil kein Fußgänger erkennbar den Fußgängerüberweg benutzen möchte. Videoga hal mar baan daawaday ma xasuusto inuu gaadhigan wuxuu leeyahay hadda su-aashan labaad waxay leedahay waa qun yar war istaagaya sababtaa ilma xaggan soo socda. hadduu ilma soo socdo su-aashaas sax way noqon kartaa ilma xaggan ku jiro laakiin ma hubo. videoga markaad daawatid waa inaad 5 jeer baad soo saartaan 5 jeer baad ku ceshataa marka anigu hal mar baan daawaday laakiin waa saxaya hadday khalad noqoto waa eegaynaa laakiin qof baa halkaa kusoo jiray hadduu qof ku jiro waa sax haddaanu ku jirinna uu khalad marka su-aasha markasta videoga 5 jeer daawada waa khalad sababtaa ilmo kuma soo jiro su-aasha markaa ku xisaabtama taas qof ilba videoga waa inaad 5 jeer daawataa saad u ogaatid wax hortaada ku jira marka mararka qaarkood wax logic ah hadduu qof ku jiri lahaa laakiin haddaad videoga si wacan u daawan waa ku khaldami kartaa marka su-aashan sidaas koowaad oo keliya saxa si aad u xasuusataan idinkama saarayo saasay idinku jiraysaa markaa xasuusnaada. su-aasha ku xigta sawir baa layna siiyey laba qof waxaad doonaysaa inaad leexatid laba qof baa wadada doonaya ina gooyo labada qof ahmiyadda iyagaa kaale markaad leexanaysa waa inaad sugtaa bal aan eegna markaas. Wie verhalten Sie sich richtig? sidee si saxa ugu dhaqmaysaa hadda. Ich fahre weiter, weil beide Fußgänger warten müssen. horaan isaga soconaya waa iska leexan iska soconaya sababtaa waa inay dadku isugaan waa khalad. Ich warte, weil beide Fußgänger Vorrang haben. waan soconaya sababtaa labada qofba iyagaa fooqaankiga leh iyagaa ahmiyadda leh. Ich biege vor dem entgegenkommenden Fußgänger ab, weil nur dieser warten muss. Ich biege vor dem entgegenkommenden Fußgänger ab, weil nur dieser warten muss. waxaan ka hor leexanayaa waxaan wadada ka horgelayaa qofka soo socda sababtaa waa inuu isagu isugaa marka haddaad tan dooratid tan baa khalad noqonaysa sababtaa tan waxay leedahay labaduba ahmiyadday kaa leeyihiin tanna waxay leedahay midba ahmiyadda leh kalena waa ka horeynaya marka labaduba ahmiyadda ayay leeyihiin ayaa saxa oo labada qofba iyaga ahmiyadda leh. okay su-aasha ku xigta. Die Ampel zeigt grün. Sie wollen rechts abbiegen. Wie verhalten Sie sich gegenüber Personen, welche die Straße überqueren, in die Sie einbiegen möchten? waxaa ishaaraad wadaad maraysay wadadii ishaaraad taagnayd ishaarada green bay ku noqotay waxaad rabtaa inaad midig u leexatid midigkaad u leexanaysid dad baa jira wadadii goynaya markaasi oo iyagana green u tahay adigana green ku noqotay marka adiga leexashadu green ku noqoto iyagana garaada ausku waa u green inta badan oranji buu ridaa oo kuu leeyahay akhtum qaarna ma ridaanba laakiin maxaad samaynaysaa waa inaad istaagtaa oo aad u ogolaataa dadkaasi inay gudbaan sharciyan marka bal eega choices wayna siiyey. Zügig vor den Personen abbiegen. Den Personen das Überqueren der Straße ermöglichen. inaad dadka wadada u ogolaatid inay gudbaan. Die Personen durchhupen warnen. dadka waa inaad hoonka u tuntaa kabnaya wadada. tan saddexaad maxay leedahay. Zügig vor den Personen abbiegen. koowaadna waxay leedahay dadka ka hor dheere intaanay dadku wadada soo gelin xoog u socdadna hore u dhaaf si aad markaas adiguna aad u gudubtid iyaguna wadadooda u maraan markaa inaad xoog u socdidna waa khalad waa inaad istaagtaa tan kale hoonkootuna waa khalad kaliya ta u ogolow dadku inay wadada ka gudbaan ayaa sax. okay Was gilt unmittelbar vor und auf Zebrastreifen? maxaa markaasi ku quseeya oo ay tahay inaad ogaatid saddexdan choice halka ku qeeya maxaa ku quseeya ka hor sibrashtraasaha iyo korka sibrashtraasaha foosgaangiga korkiisa iyo hortiisa maxaa markaa saddexdan choice lagu siiyey ku quseeya. Es darf nicht gehalten werden. lama ogola inaan istaago waa sax inaad istaagtid lama ogola. Es darf nicht geparkt werden. lama ogola hortiisa iyo markaas dushiisa inaad baarkin ku baarkin garaysid. Es darf nicht überholt werden. la ima ogola inaan overhauling ku sameeyo oo aan gawaadhi markaasi ku dhaafo saddexduba markaasi waa sax saddexda midna ha ku samayn. okay iminka waxaad samaynaysaa qofba wadada doonaya inuu gooyo gaadhigaasina isna uu taagan yahay wadadii kama gooyin kartid gaadhigana uu taagan yahay adigu halka marmaraysaa bal muxuuna siiyey information. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation? sidee u dhaqmaysaa xaaladan. Ich lasse den Fußgänger die Fahrbahn überqueren. qofkan lugeynayaan ogolanaya in wadada gudbo waa sax. Ich schließe unmittelbar zum blauen Fahrzeug auf. gaadhiga buluugga baan dabadiisa daba istaagaya waa khalad. Ich warte vor dem Fußgängerüberweg, bis das blaue Fahrzeug abgebogen ist.
xaggan baan taagnaanayaa fuuskaangiga hortiisa ama sibrashtraas hortiisa ayaan taagnaanayaa ilaa iyo gaariga buluuga ahi uu boos ii banaynaya minaha baaskeeshu ka dhammaanayso isaguna uu dhaqaaqayo dadkuna ay gudbayaan markaasaan anigu dhaqaaqaya taasaa markaa saddexdaasa sax labadaasa saxa ka wada okay su-aashan yaani tan igu qalda labaa saxa saddex sax maaha sababtaa waan daba istaagayaa waddadan xidhayaa khalad weeye labadan baa markaasi saxa saadan u khaldamin su-aashan kale maxay leedahay Warum ist eine defensive Fahrweise beim Annähern an Fußgängerüberwege besonders wichtig? sabab ma ay muhiim u tahay inaad defensive driving defensive waxaa leedahay wadi difaaceed inaad markaa gaariga wadid sifra ishtiraasa kusoo dhowdahay sabab ma ay muhiim u tahay inaad difaac ku jirtid micnaha aad feejignaatid maxay muhiim u tahay oo aad xawaarahaaga hoos soo dhigtid breegaagu diyaar ku ahaado leewarka lugta ka qaadid markaad sifra ishtiraasa usoo dhawaatid maxay muhiim u tahay Damit nachfolgende Fahrzeuge leichter überholen können. waxay muhiimtaas u tahay oo aan leewarkayga usoo dhimaya leewarka lugaha uga qaadaya breega usii diyaarsanaya feejignaanta u gelaya si ay gawaadhida iga dambaysaa si fudud iigu dhaafaan waa khalad laguguma dhaafi karoba sibrashtraas ta labaadna Damit auch Fahrunfälle vermieden werden. si aanu markaasi shil u dhicin oo haddii adigoo xawaare ku soconaya sibrashtraas soo geshid oo qofna israahdo gal aad xoog breega u qabatid gaariga ka dambeeya kaa dambeeyana saa u soconaysid buu soconaya isna dabadu kaaga dhacaya wax laga yaaba in guriga ka gaarsiin waayo si aanay markaasi isku dhac u iman shil markaasi u sabamin ama dabada aana isaga gelin Damit Fußgänger nicht verunsichert werden. si aanu qofku dadka fuuskankaga wadada goynaya aanay u dareemin ammaan darro oo haddaad aragtay adoo wadada isla aragtid gabadh xoog kugu soo ordaysa ma dareemaysid ammaan waad ka istaagaysaa ama waad ku dhexnaxaysaa adoo wadada dhex taagan si aanay dadka wadada u maraya ammaan darro u dareemin waa inaan markaan sifra ishtiraasi usoo dhawaanayo qun yar usoo socdaa diyaar ahaadaa oo aanan breegayga xitaa xoog anoo leewarka hayadan ka qaado breega markiiba qabta buu gaadho odhanayo istaagaya istaagaa u istaago dadkii way naxayaan waxaa laga yaaba dad xanuunsanaya inay ku jiraan inay caruur ku jirto in qofku isku nuxo ama gaariga kaa dambeeya dabada kaa galo marka si aanan ammaan darro aanay u dareemin dadka wadada goynaya awgeed ayay tahay inaan defensive traffic aan usoo galo oo aan qun yar markaasi diyaar u ahaado labadaas ayaa iyaguna saxa okay su-aasha ku xigtaa Eine Person will die Fahrbahn auf dem Fußgängerüberweg überqueren. Wie verhalten Sie sich? hal qof ayaa doonaya inuu wadada sifra ishraasaha ama fuuskangiga gooyo wadada ka gooyo sidee markaas u dhaqmaysaa Ich überhole wartende Fahrzeuge mit besonderer Vorsicht. gawaadhida sugaysa ee iga horreysay ee qofkaasi u ogolaatay inuu wadada gooyo ayaan si taxadar le markaasi ubahool nagu samaynaya aan dhaafaya waa khalad layskuma dhaafo sifra ishtiraasa layskuma dhaafo sifra ishtiraasa niyadda ku haya waana 5 buunde labada tan iyo mid kale oo keliya aad ku dhici kartaa imtixaanka Ich bereite mich auf das Anhalten vor. waxaan isu sii diyaarinayaa inaan breega qabto markaan soo socdo breega inaan qabto isku sii diyaarinaya oo diyaar baan usii ahaanaya inaan anhaltin aan sameeyo Ich überhole nicht. ubahoolin ma samaynayo wax ubahoolin ah ma samaynayo labadaas ayaa iyaguna markaasi sax su-aasha kale hore oo aragnay labadii nin unbaa laba dumar inooga soo dhigay markaa balaanu eegna maxay nagu leedahay Wie verhalten Sie sich richtig? sidee si saxa ugu dhaqmaysaa Ich fahre weiter, weil beide Fußgänger warten müssen. horaan isaga soconaya sababta labada qof weynay sugaan waa khalad Ich biege vor der entgegenkommenden Fußgängerin ab, weil nur diese warten muss. waxaan ka horgelayaa wadada qofkaa soo socda sababtaa isagu waa inuu sugaa isaga xaggaa kasoo socda markaa waa isagu inuu sugaa markaa waa ka horgelaya waa khalad saddexaad Ich warte, weil beide Fußgänger Vorrang haben. sax waan istaagayaa sababta ah labada qofba iyagaa iga leh fooqaanka iyagaa iga horgelaya wadada iga hor leh oo iyagaa muhiimadda iga leh markaa taasaa saxa okay su-aasha ku xigtaa iyaduna maxay leedahay Sie fahren auf einer Straße mit 2 Fahrstreifen in einer Richtung auf dem linken Fahrstreifen. Vor einem circa 30 Meter entfernten Fußgängerüberweg hält auf dem rechten Fahrstreifen ein LKW an. Wie verhalten Sie sich? wuxuu kugu leeyahay wadaad markaasi maraysaa wadadu waxay leedahay laba liid oo isdhinac markaasi socda labadaa liid dhanka midixda waxaad adigu ku socotaa qaybta liidka linka bidixda ayaad markaasi ku socotaa ilaa 30 mitir hortaada waxaa ku yaala fuuskangi ubabeeg waxaana fuuskangiga
ka istaagay gaadhi kaa horeeya oo markaasi el cafe ah ayaa 30 mitir ka hor hortaada ayaa dhanka midigta gaadhi el cafe iyo breega qabtay oo Silberstraße markaasi ka horeyso adiguna bidixda ayaad maraysaa markaas maxaad markaasi hadda samaynaysaa Ich fahre mit mäßiger Geschwindigkeit heran. waxaan xawaarahaygaan hoos u soo dhigayaa sababtaa 30 mitir baan haystaa weli iga horeysaa inaan hadda istaago uma baahni xawaarahaygaan hoos u soo dhigayaa oo qunyar baan markaasi u soconayaa Ich fahre zügig weiter. xawaaraan ku soconaya dhaqsaan u ordayaa micnaha dad xoog u ordayo kadibna qof wadada soo gala ka horan weel kafeegu qofka istaagay nope xawaaraha hoos u soo dhig markaa Silberstraße soo gaadhid breega qabo qofka si ama baaskeel ama ilmo wuxuu doona ha noqda wadada goynaya si uu gooyo Ich gebe Warnzeichen und fahre am LKW vorbei. waxaan siinayaa signalku wuxuu doona noqon karaa horn light adigu signal digniina ayaan siinayaa kadibna el cafeega ayaan dhaafayaa taasina waa khalad markaa waa labadaba waa khalad inaad xawaare ku socotid oo aad degdeg ku dhaaftid iyo inaad horn iyo xawaare bixisatoona uma baahnid kaliya aad xawaarahaaga hoos soo dhig 10 km ama wax ka yar ku soco ilaa aad gaadhaysid markaa el cafeega markaa taa koowaad oo kaliya taa ayaa sax okay su-aashan iyaduna maxay leedahay Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig? sidee xaaladan si saxa ugu dhaqmaysaa sawirka hore aan u aragnay markaa balaynu eegno Ich verringere meine Geschwindigkeit und bereite mich darauf vor, anzuhalten. breegaygaan sii xawaarahaygaan ka kacayaa breegaan sii diyaarsanayaa si aan breega u qaban karo iminka weli xoogaa bay ii jirtaa qasab maaha inaan istaago ma ogi inay soconayaan iyo inay taagnaanayaan inay sheekaysanayaan marka leewarkan ka kacayaa breega ay diyaarsanaanaya qunyar baa u soconayaa haddaan arko inay wadada soo gelayaan waa ka istaagaya hadday weli taagan yihiinna waan gudbayaa okay Ich fahre mit gleicher Geschwindigkeit weiter. xawaarahan hadda ku socdaa 30 mahaya ayaan ku soconayaa oo waxba kama bedelaya waa khalad Ich beobachte die Personen aufmerksam. dadkan baa isha ku haynaya oo ishaan ku haynaya may soconayaan may dhaqaaqayaan may taagan yihiin madib bay u kala jeesanayaan wadada soo gelayaan maxay samaynayaan taasina iyaduna markaasi waa sax okay su-aasha ku xigta su-aashan iyaduna waan aragnay markii saddexaad inagu soo laabanaysa waan maynayaa isla iyadiisa maaha Womit müssen Sie bei derartigen Klärungshilfen rechnen? maxay marka xaaladda halkaa ku jirtid aad tahay inaad qishnin ku samaysid ama niyad aad ku xisaabtantid Fußgänger nehmen an, dass sie Vorrang vor dem Verkehr haben. waxay ku xisaabtamanayaan dadka wadada maraya in iyagu ahmiyadda leeyihiin ha waa sax iyagaa ku xisaabtamaya yani si khaldan lagu weydiin maxaa saxa laguma weydiin waxa lagu weydiiyey maxaad ku xisaabtamaysaa adigu waxaa ku xisaabtamaya dadka wadada taagan in aanay booska ii banaynayn oo qaarkood wadada iska soo geli karayaan ilmahan oo kale inuu iska soo carari karayo oo ama islaantani u malaynayso inay muhiimadda iyadu leedahay markaas waa sax Radfahrer überqueren die Straße, ohne den Verkehr zu beachten. baaskeesha qofka wata isagaan hararaha iska eegin gabadhada iska eegin ayuu wadada iska soo gelaya iyaduna waa sax Fußgänger beachten stets den Vorrang von Fahrzeugen. dadka wadada maraya iyaga ahmiyadda isiinaya oo waxay ogaanayaan inay gaadhigu ahmiyadda leeyahay markaa way iga istaagayaan caruur baa xitaa ku jirta baaskeel baa ku jirta qaar xanuunsanayaa ku jira markaa kuma siinayaan tan saddexaad waa khalad iyagu ahmiyadda kuma siinayaan adigana kuguma xisaabtamayaan kumana fakerayaan marka markasta waana ku xisaabtantaa inay khalad samayn karaan bini aadanku adigu markaa waa inaad taxadar dheeraada muujisaa okay su-aasha ku xigta maxay iyaduna markaasi leedahay su-aashani maxay ku odhanaysaa Ein Radfahrer möchte, ohne abzusteigen, auf einem Fußgängerüberweg die Fahrbahn überqueren. Wie verhalten Sie sich? qof baaskeel wata ayaa isagaan markaasi wadada madaxa la soo gelin ama kusoo hortay waxa uu doonayaa inuu wadada gooyo wadada Silberstraße dhinaciisa soo istaagay wuxuu doonayaa inuu wadada gooyo waad aragtaa inuu wadada inuu gooyo doonayo sidee markaas adigu u dhaqmaysaa Ich hupe und fahre vor dem Radfahrer weiter. honkan u tumayaa kadibna qaad faaraha ka hor ayaan iska gudbayaa minaha dhidhid halkaagaa taagin waxay igu soo socona dhiim gudna wadadan gelaya waa khalad wuu ku ixtiraamay wuu iska soo geli kara lahaadu doono kadibna shil baad geli lahaydeen naftiisu ilaalinaya wuu kaa istaagay laakiin wuu ku tusayaa inuu rabo inuu gudbo markaa waa inaad u istaagtaa hoon baan u tumayaa khalad weeye Ich lasse den Radfahrer die Fahrbahn passieren. waxaan u ogolaanayaa inuu qaad faaruhu wadada ka gudbo mararka qaarkood uba weerin bay kusoo qorayaan marka baasiiqin bay kusoo qorayaan markasta ka taxadar kelmadda lagu soo qorayo kuna celceli keliyata waxaa laga wadaa inuu wadada gudbo ayaan u ogolaanayaa okay Ich bremse erst kurz vor dem Fußgängerüberweg ab. tani waxay saddexaad marna khaladna way noqon kartaa saxna way noqon kartaa waxay kugu leedahay waxaan breega qabanayaa in yar ka hor fuuskaankayga micnaha markiiba breega qaban maayo uma soo gaabinayo markaan in yar soo jitaan qiiq
break qabanayaan ma khalad way noqon kartaa dad qabatid haa wada ogolaanaysa inuu gudbo laakiin ammaan daraad gelinaysaa qofkii wadada goynayay marka taas waa ka tegaynaa taa waxaan qaadanaynaa keliya tan sababta mar kasta waa qalad inaad ammaan darro gelisid dadka wadada goynaya haddaad ammaan darro gelisid aad sibrashtraasa hortiisa xoog break ugu qabatid waxaa laga yaabaa qofku inuu ku dhahdo war gudbi maayo soco adigu wad waa tahay aba aad break kuu qabsami waayaba marka mar kasta hore markaad aragtid sibrashtraasa leewarka ka kac xawaarahaaga hoos soo dhin haddaad aragtid inaan cid wadada sibrashtraasaha taagnayn gal haddii cidi taagan tahayna qunyar break hoosii qabo okay saas ayay ku dhan tahay aad iyo aad baad mahadsan tihiin muuqaalkeeni maanta saas kusoo gabagabaynaynaa habeen wanaagsan